كود كان كوس صاريا لعل هدي بري authenticator كاga ka dhume xitaa kan backup ahaan u isticmaal bukulay backup ka kan hanqdo hadda akoon yaro tijaabo ah ayaan sameeyay waxaan u bixinay magaca Faarax Tijaabo password adagna wax kale maahan waa inuu noqdo magacaaga ku jirin telefoon numberka ku jirin lambar lagu qiyaas karo dhalashadaada maalinta dhalataysa ku jirin Charlie waa idin salaamay waxa rajaynaad wacantii dhamaantiin dal iyo dibad meel kasta joogtaan muuqaalkeena maanta waxaan rabaa mowduuc runtii aad xasaasi u ah inaan kala hadlo kaasoo ah mid dhamaanteena wada quseeya caalamka hadda iskala dhex sheekaysano oo caalamka internetka wuxuu leeyahay albaab laga soo galo iyo albaab laga baxo albaabkaas waa mid adiga ku gooni ah adiga baa soo gali kara meesha hadda iga daawanaysid akoonkaaga weeyaan waa gurigaaga waa xayndaabkaaga waa xeradaadana ciidaad u fasaxday mooyee cid kale soo gasho dabcan aad jeclaanaysa ma filayo haddaba xayndaabkaas aad ku jirtid oo ah facebookkaaga instagramkaaga snapchat wax kasta youtube-kaaga kugu jira mid walba waxaad kusoo gashaa lambar sireed iyo baakiya haddana saas oo marar badan waxaa dhacaysa adigoo dadaalayay oo xulba is dhowrayay marar badan xeradaadii xayndaabkaaga lagu soo dhaafo haddaba sidee u ilaashan kartaa akoommadaadan ayaan mowduucina kala tusaya waxaan ka bilaabayaa Snapchat laakiin kaligiisa ku ekaanaya sababtoo ah waygiska iyo qaabkan u ilaalin doono iyo waxyaalaha shuruudan laga rabo haddaan kaligiis buuxino isla ayagoo kale aad ku dabaqi kartaa Facebook-gaaga YouTube-kaaga Instagram-kaaga iyo any other account email even xitaa email-kaaga caadiga dhamaantooda ku dabaqi kartaa marka halka wada isla fiirino wadadaasna dabcan meel kale ma raadinayno Snapchat laftigiisa aan weydiinayna page-kiisa sad u wada jeedaan shuruudahan ayuu isoo saaray lixda qodob ayaan waxaan sameeynaa qaab ituso taabsi ah baan ku sameyn doonaa waa xalqadeeni tabi xalad ku soo dhawaada mar labaad horta ugu horeyn waxa wax walba shuruuda ka horeysa inaadan passwordkaaga lambar sireedkaaga aadan cid la wadaagin xitaa Snapchat qodiis wuxuu ku leeyahay xitaa anaga hana la wadaagin qof Snapchat u shaqeeyo xitaa intuu ku soo ku dhimayo emailkaaga ama passwordkaaga muxuu yahay waliga ku weydiin mayno taas horta waa mid koowaad wax walba aad sameynaysaa hadii aadan cidna la wadaagi doonin dabcan adiga ku koobnaan doona soo ma qodobka xiga waxa weeye inaad dooratid password adag qaabkee ku dooran karnaa tusaalahan oo kale marka aan gelino Snapchat-ka account-ka furtid oo kale wuxuu ku leeyahay wax rabta in adigu aad dooratid mise in anagu ku doorno waa dooran kartaa mid dheer badanaa waxa shuruud ah in uu ka kooban yahay xarfo numbers iyo calaamado khaas ah sida comma ama hakad joogsi bracket iyo waxa la mid ah raacisid kuwaas dabcan kulliin waxa wada taqaanaa hadda Snapchat ama account Instagram si loo sameeyaa waa ka soo bodo xasuudan hadda akoon yaro tijaabo ah ayaan sameeyay waxaan u bixinay magaca Faarax Tijaabo password adagna wax kale maahan waa inuu noqdo magacaaga ku jirin telefoon numberka ku jirin lambar lagu qiyaas karo dhalashadaada maalinta dhalataysa ku jirin wax ka madax banaan tamaaman waxaan ognaa dhammaantiin qof walba sir ula dhimanaya jirto adduunkan kala tagay saasoo kala ku noqdo يعني wax kula ogaysan jirin inuu yahay ka soo qaad hadaba passwordkii waa jeedan akoonkii Faarax Tijaabo ayaan sameysanay kan ayaan password u sameeynaa passwordkeena waa inuu noqdaa mid runtii aad u adag maxaan ka dhigi karnaa password adag maxaan ka dhigi horta waa inuu ka kooban yahay xarfo oo ku jiro xarf capital ama weyn ka bacdi numbers ka bacdi calaamado khaas ah sida comma hakad joogsi wax la midka waa sameeynaa buuraha xargaga waxa la ma jirtaa buuraha xargaga ya kula qiyaas karaas leedahay buuraha xargaga حرف بعض هريس حرف وين باك دغني كبعد waxaan ku daraynaa 9 4 5 tiro kabacd waxaan raacaniya koma labadaas raacaniya yani kana kala qof inuu qiyaaso ismalihi oo la qiyaasi kara unless ila uu qofka og yahay inaad buuraha xargaga jeceshahay ama meelahaas inaad aad jeceshahay okay continue ma dhahaynaa ma wadayna passwordkaas inuu naga aqbalan yar rajeynina emailka geli uu leeyahay Faarax Tijaabo @gmail.com email kan fariinta soo dirnay sababtoo ah marka muuqaalkan faafinayo waa tirtiri doonaa hadda saas akoonka ugu jirnaa wuxuu leeyahay saaxiibada soo raadada saaxiib waxaas ma raadinayno qaybta u koreyso skip baan dhahayaa tan skip baan dhahayaa dhaafi baan leeyahay emoji waxba dooran mahayo waa ka soconaya hadaan doon kalaftiisa iska xiraya marna aan leeyahay emoji waxa isku ma jiro kan laftigiisa waa ka sii baxaya dabcan halkan sidin ka muuqata aniga halkan kaga soo baxaya ka bacdi waxaan dooranay meesha profile-ka ku aadan kore markaan doorto setting-ka aadaya hadda waxa ka hor email baan gelinay telefoonkeena soo gelinay email-ka laakiinse email qof kale buu lahaan kara ama email-ka ina khalday baa laga yaabaa qof kale u aad email-kayga marka waa inaan email-kan aan hubiyaa si uu hubinaya asigaan ku dhufanay mar labaad asigaan gelinaya Faarax Tijaabo @gmail.com
markaan geliyo dadka kale wuxuu meesha hoos wuxuu leeyahay dadka kale inay ku soo helaan ma rabtaa ayuu emailka isticmaalay haddii aad rabto in emailka lagu soo raayo Snapchat ka oo dhaafi karta laakiin waxa leeyahay ma rabo qofka aniga aan raadsado ama asaga aan markay gooni aan sii ma ahane qof kale isu soo helin marka saa wada ogna marka akoonka samaysan hadda tala emailkeen waa galiyay dhamaanteen waxaan u badanahay inaan sidaan ku isticmaalno verify now inta meesha kugu qoran tahay it means waxay ka macno tahay akoonkaaga wali secure ma ahan ama mid sugan ma ahan waxaad u baahan tahay inaad xaqiijiso emailkayga ayaan galayaa markaan ku dhufto wuxuu ii soo saarayaa emailkan wuxuu leeyahay Faarax Tijaabo emailkan ayaa la gashaday meel Snapchat la dhaho adiga miyaa mise in kale emailkan adiga miyaa leh bal hubi confirm baan dhahayaa confirm markaan dhaho mid kamid ah kufur aragna xageena la aadi doonaa طبعا waxaan xaqiijin doonaa ya rajaynaya kor wuxuu noo soo diray emailkaaga verified way waa la xaqiijiyay aan setting ku laabto sida u jeedaan meesha emailka hada gududnayd waxay noqotay kal raacay noqotay mobile number kana sidoo kale aad sameynaysaa asna markaad gelisid aad dalka doortay saan oo kale Soomaaliya raadinaysaa SO marka Soomaaliya soo heshid xagaan aad gelinaysaa markaaga wuxuu ka bilaabanayo hadaad horumu isticmaashid la hal eber ama la hal something furaha wuxuu yahay haddii aad dhan kala joogtidna silaan oo kala waa eber 9 eber ka bilowda adiga 9 baad ka bilaabi kartaa ama wixii lamida and so on kulligood asagana sidoo kale wuxuu ku soo diri doonaa SMS ku soo diray SMS kaas mashkilinaysa sadarteed waxa ku hirgalaysa in waxaagi ku sugnaadaan labadaas qodob aad bi muhiim inaad baa soo xoogan dooratid kan aad gelisid labadaas waa ku xiga oo aad xaqiijisid meesha waxa dhici karta marka qaar in teleefankaaga oo ka xirmo ama ciladkaaga imaato ama aad dalka dibadiisa aadid marka mar walba SMS ka telefoonka caadi kugu soo dhacay isku filan baa laga yaabaa sadarteed waxa jirta Google Authenticator waxa loo yaqaan Google Authenticator caadi ahaan waxaan ka soo heli karnaa App Store ka ama ka soo isticmaali kartaa Google Play hadda isticmaashaan Android system hadda isticmaashaan marka halka ku qoro Authenticator marka ku qoro soo ordaya ayuu soo horbaxaya ka horeeyo weeyaan caadi ahaan Authenticator badan ayaa jira laakiin waxa idin kula talin inaad isticmaashaan midka shirkadda Google ay leedahay saan u eegay calaamadiisa iPhone ka iyo mataqaanaa iyo Android ka intaba kaasaan u soo galo oo banaan yiraahdo meeshaan cidlada way keenayaan marka waxaan leeyahay sida ugu soo dari kara marka waxaan ku laabanayaa Snapkaygi markaan ku laabto aan meeshii setting ka tago meesha oo hooseysa arkaysaan password ka hooseysa waxa ku qoran two factor authentication kaasaan ku dhufanayaa xulisa hadda u jeedaan cagaar continue ilaa sababtoo ah wax hore lagu daray ma jiraan hadda markaan continue raahdo wuxuu leeyahay waxa rabtaa inaad ku soo dirtid two factor authentication ama 2FA wax loo yaqaano let's do it baan leeyahay yes ha wuxuu leeyahay SMS ahaan miyaa rabtaa mise authentication app isticmaalaysa application baan isticmaalayaa baan leeyahay maxaa rabtaa inaad u samaysid manually mise automatically marka saan u samaysto waxaan dooranayaa set up manual ahaan u samayso haddaba meeshaan si idin muuqata wuxuu noo soo saaray barcode ka haduu ahaan lahaa mid aan computerka sameeyo kale application ka intaan galo two factor authentication intaan galo oo add code dhaho baan scan dooran lahaa hadhowtan meeshaan doonaan ku aadin lahaa laakiin hadda maadaama telefoonka iyo application ka isku meel ku yaalan oo two factor authentication ka isla telefoonka ku jiro waxaan dooranayaa code kan hoos ku qoran ayaan koobiyeysanayaa asaga dhan aan koobiyeysanayaa soo jeedaan copy baan iri markaan soo galo two factor authentication ka meesha sad internet app keygan galeeyaa ka bacdi keyga meeshaan ku koobiyeynay halkaan paste ku dhahaya korna application ka markaas aan ka soo qaadi code ka oo Snapchat ayaan magaciisa ugu qorayaa Snapchat ayaan leh ka bacdi add ayaan leh add markaan dhahdo waxa u jeedaa waxa ii soo baxay magaca Snapchat iyo far lambar qoraal ay soo baxay iyo meesha yarta u jeedan wareegsanaysa marka wuxuu sameeyaa 30 sakin kasta 30 ilbiriqsi kasta kood cusub hadda fiir kan uu dhamaanaya gududan mid kale u boodaya yaani 30 sakin kasta wuxuu sameeyaa baasur cusub 30 sakin kasta wuxuu sameeyaa baasur cusub taa micnaheedu waxa weeyaan bari ka maalin hadii aan rabo application ka inaan ka soo galo meel kale hadda su'aalahan kale waxaan dhahaynaa hadda kan continue baa dhahaynaa maadaama waxa ku soo rakibnay continue baan iri واكن وحد ويدي verification code la imo buu leeyahay yani hadda code ka xigta u doonaya dabcan meeshaan ka soo qaadanaya marka hadda kan uu dhamaan raba soo dhamaan waa korkiisa ku dhufanaya uu ii copy halkaan ku soo laabanaya paste ku dhahaya continue aan leeyahay okay wuxuu leeyahay wakaas waa ku sameynay marka wuxuu ku soo saaraya code okay marka dhana code kan ku soo saaraya la'alla hadii bri authenticator kaaga ka dhumo xitaa kan backup ahaan u isticmaal buu ku leeyahay backup ka kan han noqdo ani waxaan dhan hadda arkaysaa dhigto tirtiro doona faa'iido idin ma yeelan doona dabcan laakiin mar walba kan ina la hatid weeyaan la'alla hadii passwordka ka halaabo la'alla hadii authenticator ka dhumo wuxuu ku weydiinayaa backup ka marka waxaan leeyahay ii copy ama screenshot ahaan igu save gareeya labada telefoonka kugu save gareeya ama screenshot ka qaadanaysa inaad ka save gareysto ka soo qaad continue lana ka gudbina
SMS verification samee buu leeyahay waa ka gudbiya kaas haday maadaama yani telefoonada ku sameeysta waa ka dhamaan intaas wuxuu ku leeyahay caadi ahaan intaan kale inuu ku daaran yihiin SMS-ka waana ku daaran yahay aniga ma daarin sababtoo ah mataqaana telefoonka mid kale uu xiran yahay inaan ka bedelo ma rabo device-ka inaan ka furo ma rabo saas ku ahaanaya mataqaana saas hadda ku joogtaan hadda marka two factor authentication dhahdid wuu ku xiran yahay authentication appkaas inuu tick saaran yahay ay hubinaysan marka horta muhiimaddu waxa weeyaan inaad isticmaashid password adag in telefonkaaga emailkaaga ay verified ku yihiin oo ay code ku soo diraan aadna sidaas ku save gareysatid in aad isticmaashid application kan two factor appka hadda ka hadlaynay in aad isticmaashid oo mar walba laga maarmaan ay tahay kaliya ma ahan Snapchat kaliya ma ahan dhammaan Instagram-kaaga Facebook-kaaga YouTube-kaaga dhammaan oo isticmaali kartaa dhabtii anigu sanado saasan ku isticmaalaa alxamdulillah ilaa hadda wax dhiban kala kulmeen ma jiraan aan faa'iido ka ahayn idinkana sidoo kale kula talinaya xaradina ilaashada noloshiina ilaashada kaliya dib markuu meesha ka soo gaaro nafsadaada kaliya kaama soo gaarayo adiga dadku ugu xiran dadka adigu ku aaminay reerkaaga eelkaaga caruurtaada dadka ugu qiimaha leh buu dib soo gaari karaa waa anigu Maxamed Azhari is arag maqal dambe xiiso badan wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh